بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دوبادا برنامج gaara oo aynu kaga hadlayno bandhig faneed qayladaan iyo habeenkii Muqdisho loogu magac daray oo lagu qabtay magaalada Muqdisho kaas oo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaano, fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana munaasabadan ama bandhigan faneed uu ahaa mid lagu soo bandhigayay heeso kala duwan kooxda qayladaan ay ku soo bandhigayeen kuwaas oo ka turjumayay xaaladaha guud ee dalka xilligan ka jira iyo sida markaasi marxaladahan loogu gudbi karo. fanaaniinta halkaasi ka soo qayb galay waxaa ka mid ah fanaanada weyn ee Seenab Xaaji Cali Baxsan oo ka mid ah fanaaniinta sida weyn dalka looga yaqaano. haddaba waxaa la gudagalay bandhig faneedkaasi waxaana heeso kala duwan oo ku wadan iyo jacayl isugu jira halkaasi ku soo bandhigay fanaanka weyn Xuseen Shire Ciyaar Jecel oo ka mid ah fanaaniinta dalka dib ugu soo laabtay isla markaana isagu dhawaan ku soo laabtay magaalada Muqdisho.
mahadsantihiin keligay maahay fanaaniin tiro badan baa jooga geeradu ay la fogaatay keligay mikrofoonkaan qabsaday hadda fanaaniintii kale ayaa ku soo dhaweynaya waa isku soo noqonana haddaa la yidhaha
kadib waxaa la gudagalay khudbadihii kala duwanaa ee bandhig faneedkaasi xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Oliyo oo ka mid ah dadka halkaasi ka soo qayb galay ayaa halkaasi ugu horeen ka hadlay.
waxaana sidoo kale ka hadlay halkaasi xildhibaano iyo weliba qaybaha kale halkaasi ka soo qayb galay. oo ay caawa nabad tahay oo aan xilliga
جامع iyo Cabdullaahi Xasan dhamaantoodna waa ay salaamaya mudane waxaan leenahay maxaa loo dilay marshaale ayuu heesaa nooga bilaabay ninka la yidhaahdo Xuseen marshaale markii la dilayo wuxuu ku shaqaynayay idaacadda kulmiye ee anugu agaasimaha ka maalmo kadib haddana waxay dileen warsamo sharca waaye waxaan joogjoog u ahay labadaa jira ee hadiyada kulooyinka bulshadu jecleen iyo in ka badan 40 weriyaal ah iyo in ka badan milyan Soomaali oo horteeda lagu dilay intaana waxaa dilay waa cadowgaas inay wax dilaan maahan aan la kala lahayn marka mashaare waxaa dilay nafladirinka waxayna la dagaalsan yihiin qof kasta oo nool intaas ayaa rabnaa in lagu jawaabo waxaa loo dilay mashaare waxay rabaan qof kasta oo nool inay dilaan haddii aanan iska celin oo aanan ayaga dilin intaas horta in la garto waaye waxaana la yidhi nin wax dila haddii aan la dilin ee la iska sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaatay la dili waaye marka kuwaas haddaan la dilin dilka dhaafi maaya sababtaa waxda wiilashaan isdilaya wadka dila ku raban ay u dilaya naftooda dadka inay ku dilaan dilka waxay keenaya haddii la iska difaaco dhaqantu iyo albaabkiyo deyrka aad ka xirtana dariiqay ku arkayn dib hadday u laabtaan madamiyuu maraya dad miyaanay ahayn miyaan hooyo daadin miyaan aaba ku daalin miyaan waalidani yeelin dugsiisuu laba geyn yaa u dhigay duruusta yaa u dhig waxaan ku soo gabagabaynay warka markaan wax kasta u sheegno wax walba diideen duruufaha adduunka iyo haddaad nolosha diideen fadlan adinkoo dad kala mara dabad baa dib u darkata waana adinkoo xudhaga kadib dabalyada iska kuwaxta waana warkayga waa soo koobayaa waqtiguna waa dheer yahay waxaan warkayga ku soo koobayaa horta qayladhaan hadda taqaaniin laba waayo qayladhaan xuseenka cabdigeliye maaha iyo ragkooda qayladhaan dabadda waxaad ooyadeen ka dhigaysay iyo qayladhaan gudaha oo aan leenahay guddoomiya tirsanaa madaxu ah oo ayaguna halkaa ka qeylinay oo ilaahay waxaana waanaanska korordhaari maayaan inay ka aarsadaan ayagoo raba hadda waxay ka aargudanayaan magaaladii oo u ifiyey ayay ka aargudanayaan baalayaashii lagu iftiimiyey ilaaha ku dhaashayo qofka magaalada iftiinkeeda la dagaalamaya oo baalayaasha miinada ku xili cid nool u dhaafaya horta qof nool u dhaafayo miyaa marka waxay dhaafayaan ma leh waa inaan iska celinaa qayladhaanna waxaan leenahay haddaan qaaxa bulshooy qayladhaan waxay tahay cadowgaa qaraayo cadowgaa qaxinayo ummadooda qaraayo wadaniye qarsa waayeen waa wareey aan iska qabanayin waa wareey aan iska qabanayin waayo qayladhaan waa ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed waa ay ka baxday abwaa Soomaaliyeed wuxuu yidhi intaa la agalshiya dhawaaq waa ku hayaa baayaan naga lahayn dhadaa meel yuuraniyo dhagax yaa la hadli kara waagii sidaan nala dhihi jiray waxaan ka baxnay maanta ummadda Soomaaliyeed way kala garataa halyeygii wax u gala iyo kii wax ka hadlaya labadaas way kala taqaan waxaana markhaati u ah sida maanta loogu soo dhaweeyey Xuseen Shire Jaamac magaalada Muqdisho iyo xafladan caawa malaayiin ka soo qayb gashay taas ayaa markhaati u ah marka ummadda Soomaaliyeed horena waan u sheegnay waxaan dhahnay ma una baabi'i doono baabiga hari doona intii naga badbaadana beri way xisaabtami marka maanta xisaabtankiyaa ku jirnaa ciddii wax noo dhashay iyo ciddii wax naga hadlaysay waa aan kala naqaanaa hadday mas-uul tahay iyo haddii ay shacab tahayna cid kasta oo ummadda wax u gashana waa naqaanaa ciddii wax naga hadlaysana waa naqaanaa warkayga waan soo gabagabaynayaa canab oo aan ku darin salaanta oo aan gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa fadhida gudoomiyaashii degmooyinka gobolka Banaadir ayaa fadhiya xogayihii gobolka ayaan u jeedaa dhammaan mas-uuliyiinta qaranka oo dhan dhammaantiin waxaan idin leenahay kusuf dalkiinnii hooyo oo aad cadowga ka qabateen oo caawa nabada ayaa joogtiin
gudahaan haweenweynaha Soomaaliyeed dhalinyarada baada saxaafadda fanaaniinta aan jecelahay dhammaan inta ammaanka sugaysa iyo hotelkan quruxda badan City Plaza haddii ay yihiin maamulkiisa iyo inta ka shaqaysaba marka hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن مرينا عاوة معها أما هبين معها هبين سياسي وعن مرينا عاوة إنك هبين فتي فنان مركا وعن مرينا أنا نسوء استاغي كلمة سياسي إن سيجي ما دام لا يكسي شفاي لكن سيان فرحة يدور الصف هذا يقصد يعني شاطع سياسة وحن جعلها إلى يرى اللي المحايلي بكل مقام له مقام يتعرفه من قصة إلى رأي مفتي إيوه وعلى وين هذا حكمتها مدن يلعبوا في الحدة قف بس يسوي جدا وحن جينا اللي يرجع بيسر المدة حمر الميوزك اللي هو عيارة يعني نعرف وعاوة فنانين عن جعلها عن أمها تعلينا يقوليها هو سيدا كاركا منجي لنقول بصر الأبطان سي أي أوتوسان وحا حالتنا الضلقة الضبطة محايا ليس الخبر كالمعاينة يعني وسيدي لو مشهد وماها يوحد كواركتو مركا فنانينتا أي مانتا اسكسو دولة عيان فنانينتي سوماليا اللي قربان نغي جرتيها قولهان أني وأمها تعلينا يقولون بغالينا يوم مثل عاوة وحاسيكا بغالينا يا ولكن هناك ذلك حسين شيرة عيار جعل إيو كوحديسي بينا وحنونا إنه هؤلاء كجروا أمال وحنونا إنه هؤلاء كسو جروا وحنونا إيو نور إنه هؤلاء كجرتو وحنونا إيو إنه هؤلاء كم عليه مركبنا نيتو عن ولينا وحاولنا يسكتنا فاينين قندونا وحصوك لأي وحسيبا محمد سليمان وحالي أسيغان بيسي ديسي يصورها مركا إن شاء الله كان هو رسولنا الرمان حسن هذا الجنبي يسوي شيء بدونيا قبل كم بنادر ولكن سعيد كنا ترسل وربي من قاليا وفنانيتا انت أنا تطلق ولي أنا قرن اسمكو قفتي وحاي قلاني وحاي قلان مركا ولايا أنا فرحتي إنما حايين فرحت وأن كسيو حلوانات الصوماليين وعاوة أنك اللي يسمح شيئا كلمة دولة إلى هذا سابق السعطان قوحدة غيلدان وحي كوح سياسة لها آد وحي مليشة سيدة وحدود توسيو انتي كوحا أمريكا أم حتى أنكادا وحي صفقة ورقوجيتي دبادة انتي جوتي وحا دولة يكون قاويسوني وحي برماريسو dadka tilmaami jiray dadka mucaaradka sida qaldan u dhaqmo kuwa hada heesooda ka dhansanaysay laakiin anaga waxaan lagu taagnay heestii ahay xildhibaan xaalka laakiin caawa waxa sharaf inoo ah haydaabkii way ku jiraan ay tiri qayladaan inaan hotel Plaza iyo music iyo qayladaan inaan dhex joogno anagu haydaabkii ka soo waxaan leenahay xildhibaanada Soomaaliyeed maalintaasi waxay ahaayeen hotel Plaza oo caawin u caawinay meel waraabu dadka ku cuno meel ay wiiftada ka soo baxda ama madaaficda laga soo tuuro madaxtooyada lagu joogi karin wadooyinka Makka Mukarrama kuwa aan gawaarida isku dhaafi karin waa ilaahay maadiga dimaanta hadii quruxda badnaa iyo kooxdii qayladaan ay hotel Plaza ku ciyaarayaan شبس iyo maartay horwadaan iyo ilaa iyo haday si socdaan yaashii ilaa iyo kaaraan ayagoo maanta music wada tumanayo farsad iyo ciidamadiisa kale ay ku filayeen hatta hadii xoog dalka iska dhaafo inay farac ma tahay taasna ay maanta guul ma tahay magacaana waxa iska leeyahay filayaan maanta inta aan la wadaagno ee dawladda Soomaaliyeed dhalinyarada sharafta leh iyo inta xamar oo adkaysatay inay ku nagaado ay ku sugto ilaa looga yimaado halkan music loogu ciyaaro marka waxaan leeyahay hablaha hotel Plaza lagu guursan doono ama xafladooda lagu dhigi doono
لها قبلها درع بعياريو قارسو دانا بعياريو عاوها قارني قبلي سليت مليون يتما أبو برنام لو حصل معي لبينها تمتع في الصبح ما دمت فيه لا تخف أن تزول حتى يزول سر حيسك سوى أنت تلتان أنا كبغينا أنت تزوشان إلى باقي وتزول والأسئلة سنتين وعلى لنا السود هذا السود هذا مقدشة ورنت المشيخة تدخل بينك المشيخة مركا إن شاء الله أنا عوضا نروحي عندهم تا أبيكي اللي وانا يحيي سافر سوف يعني تفهم ويصوبتين ضاحك اليومها سارع يا نصوب يرتي فرحان عندك سوينا وفر بلد وسفارة لا والناجي وقبيل يديتا كتبان بالين هاي وقال ترسل نوعوك سوجي أسر كيسا اللي وانا الصومالية بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على رسول الله وزيرك iyo gudoomiyaasha degooyinka xildhibaanada iyo qof kasta oo meesha fadhiya iyo magaca ku fadhiya title ku fadhiyo waxaan ku wada salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam dabadeed waxaan u hambaleynayaa soo dhaweynayaa xuseen shireen ayaa jecel قيرة وطنية نبتة أمدا الرجالة الدكتين المقعد كاري هون جيستين هنا يقوي أنا الغيلدان إنهان ورهب وريا ووري إنهان أين كوكو بيان سوغان يهيسو فنا marka waxaan leenahay xuseen ku soo dhawow magaaladii muqdisho caasimadii ummadda soomaaliyeed maskaxdii ummadda soomaaliyeed qalbigii ummadda soomaaliyeed aslaantii midnimada qaranka soomaaliyeed ku soo dhawow baan leenahay waxaan leenahay fanaan kastana ee soomaaliyeed oo ku soo dhawaadaan magaaladooda waana soo dhaweynaynaa qof kasta oo yimaado fanaan hadhoweyn waxaa meeshaa nooga tulay imanuura baxsan baad arkayseen oomaal baa yimid waxaa yimid oo kale lafoole iyo xidig iyo fanaaniin badan waxay la tahay caawa farxadda ay ka muuqato markay telefishinada ka arkaan waxay isleeyihiin ma waxay joogaan ma London baa xafladu ka dhacaysa mase New York waxaan leenahay xafladani waxay ka dhacaysaa magaalada muqdisho kuwa necab magaaladan inay noloshii ku soo noqoto kuwa necab magaaladan inay mugdi ku noolaato kuwa necab ummaddan inay colaad isu hayso kuwa necab ummaddan in ay qaxooti iyo barakac iyo gaajo iyo cudur ku noolaato waxaan leenahay ka naxa oo dhafta waayo ummaddii soomaaliyeed waa tashatay waxaan rabnaa marka xaqa iyo xaqdarrada isku mid maaha laba sanad horteed waxaad fiirisiin muqdisho waad badankiima joogteen siday ahayd ummadda tiiraanyada ka muuqatay iyo murugada wejigooda ka muuqday iyo naxdinta ka muuqatay iyo caloolxiyowga ka muuqday iyo caawa farxadda ka muuqatay sidaad u faraxdeen caawa waxaan leenahay suugaanta ummadda soomaaliyeed waa waxa ummadda isku keenta ummadda hagta ummadda hanuunisa ummadda wax u sheegta waxaan leenahay annagu haddaan nahay gobolka banaadir fanaaniinta iyo suugaanta waan xoojinaynaa mar dhowna waxaan qabanaynaa tartankii la dhihi jiray muxuu ahaa heesaa hidgalay waagii hore markii heesaa hidgal la qabanahayay
أبغى المريض توقف ما غيره يا أولئك يجوا يعاود صباح وقف يا غيري أنكم كنقول يسووا حسين ناشنكم وحارب راعي صباح عن أبح يرعي عد معان يا فنانين صوت وطريق وحال الرباعي إنه يسود يبال الرباع وحال الرباعي إنه يسبدلوا على الرباع جنريشن عصوب يا فنانين إلا الديري جريا يا راسنا كريا حيكسوا بحكرانا وهي ساهل قال حسن هذا سمطر أي قصوا بحي شوفوا قصوا بحي يا قصوا يا ضلحة عندي ضلحة قصوا بحي وقوا حلالنا يسوقان كمرض الصوماليين وإن الحوتيات أمرضنا وإن يسوقان تسكت حتى ليش يموت المنطقة وإن الأبناء هذا كهر حدراوي وحنوت المامانك ودولة عقله سيدا قصوا عنا يتوار كاي وحنوت المامانين مرقوا قلدونه ما بيوحرنا سوقانيا فين النوت المامان إن الدباتة كسوة كواني إن الهرمر أنتيك سنة نوع ولا تنمو هي من نمو ولا جر إن أنتيك سنة نوع حرمنا إن النوت المامان وحنا أي ولا دل الله يا ألوه ولا ميه لكن وحنا من سنة هي حديث قال إن ولا دل دم كفهم لوجه حديث وحاجرة لا هيا لا تتعب بها هيا حقيقة صحة حديث وحاجرة لا هيا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته كتاب كان فقارني ولا تدعنا كفهمكم وامحي معنيه هدان ولا فهمناه أو ضدكم أي فهمان أو بيتواني قالوك حقه فهمه الجنرالك وفهمه وزيرك وفهمه قف كستو صومالي يشتغل ويبدي وفهمه وحان قبل كان إنه هجاجة هيو ليش ما كايس تلو فهم الدرجة عنداس واضح مركب منه وحاول يقفك وراعي والله أديك سنة أديكا ويوي وأديكا وقوسار وقوسار عرفت الراعي ومحيوانك وحل الراعيين وقوسار الصومالك وقوسار قفك السنة مسؤول وحكية وحل الراعيين مسؤول كيه هدول درامو مركا قفك السنة هدول درامو وحل الراعيين إذنه مسؤولية بينكتو أستغل إسكافي يمنك كسر هي أما أن إسكو سيمي كوا كسر هي أما أن أرورد إني مركا كوا كسر هي أي جوغان لكن الله يساعدوا أي الشغالي لوجي تي الله يمضي لغي يسدي وقبضو من كنوك حاقة هي الساعدي لغي يسدي وشغالي يسقبضو أستغل فيريني إني منك مرحدوا أما غفو مرحدوا أما غفو تسقي شغالي لوجي تسيفي عمك قبض هي هدي أسكري غناش التاقل هدو مركو سركان كيسا عدو بس شغالة قطنا هيو موسى فهمين حديث كاس ما فهمين مركا وحارب راعين وعسكري وفهموا أصابوا إنه مسؤول إسكري أو مسؤوليتي قاطو وحارب راجانكو إنه وزير كارما وكلها سوق معها أما مدحنا مركو أربعين وردو معها وحارب راعين وشغالي قوات إدمري وقبصراء أصابوا فيرين يطفل حتى أنصاص هو فهمناه متك صوت صوماليا وقبصراء يد الواجبي أصابوا فيرين إنه قفك الكرة اللي ما يسكت الصوت وحاول وضع كانوا هجاجة لكن وضع كانوا ما هجاجة هدي قفك الصوت ما الواجبي وسواك الكسر رأيه جوك بس إنه أرضه مركا كلامه فريسته أسكري إنه مركا هرايسك فريسته مركا أسكار سكال كيسامو كرر تاسيش أما مركا وحارنا ومضى الصوت إن أي كسر كبطوء أو أي وضع كده بسته أو أي وضع كده هجاجة مجرد أدوم كمجرد وضع مقود السيل عاك لا يلا قصر قادم كلا وضع مقود السيل مجرد وحارنا مركا ومضى أنه إنه وضع كده استطيع قفك المسؤولية نفسه قفك المسؤولية سارين وكفر وحارنا سياسيته وهي وقته وإنك لقينا يا وإنك لقينا يا مقاعدين رب الحين هيا
siyaasiyiin tahay shirxaya in la dhaho waan ka qaadaynaa maanta maalinta kama fiirinayo sababtoo maanta hadday fiirnaan waxay fiirinayaan kursiga hor yaallay fiirinayaan marka waxaan leenahay marka lisiiba waa inaan dhan waxaan ka fakeraynaa 100 sano ayaa soo socota ilmaha dhalan doona sida aan rabno inay ku noolaadaan ilmahay sii dhalaan sida aan rabno inay ku noolaadaan adigu waa dhimatay adigu ma joogaysid adigu ma joogtay waxaan ka fakeraynaa oon ka tashanaynaa oon ku heshiinaynaa 100 sano ilmaheenna sida nolosha u rabno marka waxaan ka saaraynaa rabitaankiisa ayaan saaraynaa meesha rabitaankiisa markaan ka saarno riyaan gelinaynaa 100 sano sida uu rabo ilmihiisa iyo awoowaha iyo wuxuu yahay kabacdi markaan ku heshiino markaan ku heshiino ankeena maanta aan horkeeno arrintii marka waxaan leenahay caawa waa farxad weyn waxaad isugu timid inaad faraxdid farxaddana oo ku celinaya farxadda iyo qosolku cimrigiina wuxuu hoos u dhigahayaa ama ka yaraynahayaa 5 sano mar kastood qososhid wejigaaga laalaabkii soo galay kareem uma baahnid qosolka badi kareem uma baahnid xuseen shire iyo fanaaniintii kale iyo fanaaniinta meesha joogta kuwa yaryar iyo kuwa horey u batay iyo kuwa gadaal ka imaan doonaba waxaan ugu mahadcelinaynaa sida ay dadka uga qoslisadeen ugu raaxeeyeen ayaan ugu mahadcelinaynaa aad baan ugu faraxsan tahay fanaaniinta ilaashada ay ku soo qulqulaayeen magaaladana waa nabad yes hata waa jirtaa waxbaa dhacdhaca laakiin waxaas dhacdhaca nabad maaha lama dhihi karo kuwa waashay dhiigyacabka ana way dhammaanahayaan qof kastoo dhiig muslim galay uu dhammaanaya si xukuun u dhimanaya waa kuwa ayagu isdilay waa kuwa diyaaradaha lagu dilahayo waxaan leenahay ilaahay meel haydinka bixiyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay nabadiya iyo wanaagiya ku soo celiyo waxaan ku soo dhaweynahay ama sawadkalis ugu dambeyn waxaa bandhig faneedkaasi xalay soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta boosada isgaarsiinta iyo gaadiidka Soomaaliya mudane Cabdishakuur Cali Mire. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina ba'd. Doomiyaha gobolka Banaadir Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa siyaasiyiinta fanaaniinta gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir kooxda qayladaan saaxiibkay kabiirka qayladaan cabshire xuseen shire oo walaalkiisa dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan badanku aad u mahadceliyo kooxda qayladaan oon isleeyahay waxay ahayd kooxdii ugu horreysay oo samaysay wake up call wax la yidhaahdo ama qayladaan ku saabsan dhibaatada iyo khatarta ay argagixisadu ku hayso dalka annaga taasoo u baahnay inay mujtamaca Soomaaliyeed ka midoobaan fikradooda ka qaataan xoogooda mideeyaan aragtidooda mideeyaan si khatartaas amniga iyo nolosha iyo jiritaanka dalka culayska ku ahayd looga hortago muddo dheer bay ka shaqaynayeen meelo badan iyo goobo kala duwan bay uga hadleen موضوعين كلا دوام بيوجهلين وعن حصوصها طلحة iyo cabdishir oo ilaacad ka doodaya oo heesti ka doodaya xildhibaan xaal qaado laakiin waxaan ku raacsanahay xildhibaan dalxa xildhibaanada hore inay soo dadaaleen sababna u ahayeen maanta dowladda rasmiga aan haysano inay hirgeliyaan waa maasantiin xildhibaan idinka iyo qeydaan waxaan umaleeyaa reconciliation asameysaan laftooda waxaan malaynayaa inay waxay encouragement ka tahay dhiirigelin bay tahay taasaan u qaadanaynaa intaas kadib waxaan rabaa wax yar inaan loo wadaago waxaa la yidhahdaa argagixisada markii ay samaynayaan qarax ama ay qof dilayaan waxaa laga yaabaa ilmeynay dilaan dumar dilaan dad innocent ama aan waxba galabsan inay dilaan ujeeddada ugu weyn oo ay dadka u dilayaan ما أقفكاس إنه دتايك معه ومفضيه وها معه ومفضيه فرينتا يماسك تعالى أي بيبلش مركي أقنع سميان معناه الوحوي مقدش أمان كمجرو عاو عن المقدش أمان كجنا رواية
iyo qayladaan iyo kooxdan tilaabada ay caawa qaadeen oo arrintan oo qof oo Soomaali ay ka soo qayb galeen waxay diraysaa message iyo fariin magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho ammaan baa ka jira la isku halayn karo waxaa u leeyahay inay koob iyo tobankii ku dhowdahay xaafadda futbolka laga yimid si fiican loo labisan yahay la qoslayo la faraxsan yahay taaskii ayaa waxay ku tusaysaa in ammaanku uu ku soo laabtay maskaxda iyo qulubta ummadeenna hadduusan ammaan jirin ama aysan dadku dareemayn ammaan uu jiro saa looma soo labisteen xaafadda adeer laga yimaadeen baabuur loo soo kaxaysteen marka annaga waxaan aaminsanahay xukuumaddan siyaasadeeda waxaa ka mid ah in fanka iyo dhaqanku uu qayb libaaxda ka qaadanayo soo celinta nabadda iyo isbadajirka dalkan gudoomiyaha gobolka banaadir nooga mahadcelinaynaa waxaana maskaxda ku haystaa gudoomiyaha xukuumadda iyo dowladdu ka mid yahay tallaabo kastoo qaadan anagu ugu bedelaa iyo xildhibaanada hore taasna waa idin muujinayaa tan kale waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa dad badan baa magaalada jooga caawanka waxaa runay maqlaan gobolka banaadir waxa uu wadaa wax la yadirisay xukuumadduna way taageertay saas darteed shacabka gobolka banaadir iyo intiina halkan fadhidaba waxaan ka codsanaynaa inaad ka qayb qaadataan barnaamijka dirisaynta waxaan ka codsanaynaa inaad la shaqaysaan ciidamada amniga ciidamada mas-uulda ciidamada booliska iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya nabadda inaad dadka dambiilayaasha oo xaafadaha isku baranaya soo sheegtaan inaad qofkii aad ka shakisaan oo aragtaan aad farta u fiiqdaan inaynaan xumaanta iyo dambiyada ayna qarsan in qofku amniga ka bilaabo gurigiisa iyo guur qolada ku dhegeen in ay noqoto shacabkii iyo dowladdii iyo degmooyinkii iyo gobolkii wax wada shaqaynayo oo wadajir ah taasaa waxaan noogu imaanaysa in ay nabaddu noo dhalato taasaa waxaan u adkaanaynaa kooxaha qaska iyo nabadgelyonimada ka shaqaynaya inaan ogaano wadajir wadajirka loo gacmado xukuuda gooyaan saas darteed aad iyo aad baan qayladaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyahana waa ugu mahadcelinayaa inuu waqti badan geliyo fanaaniinta inuu qarash badan geliyo wasaaradda faafinta oo ah wasaaradda u xil saaran dhaqanka iyo fanka waxay badan qaadaysaa inay la shaqayso fanaaniinta oo ugu horeyso kooxda waa beri qaranka oo aan ogtihiin fanaaniintaana la magacaabayo oo dhan waa waaberi ama isaariska xilligaha dalka oo dhan kuwa kalena soo baxaan baan ka shaqaynaynaa barnaamijka ee heesaha hirgelay oo guddoomiyaha gobolku sheegayay waa barnaamijka hirgelisay wasaaradda faafinta waana soo celinaynaa guddoomiyaha hadduu badan qaaday 5 kun inta kale anaga ku daraynaa waana uga mahadcelinaynaa dhammaantiin aad iyo aad baa umahadsantihiin waxaan noo badana inaan amniga ka wada shaqayno inaan xukuumadda taageerno inaan hay-adaha amniga la shaqayno inaan darisaynta ka qayb galno inaan dambiilayaasha iska qabanno inaan dadka dhismaha gobolka waxaa ka socda caasimadda oo ogtiin dhismayaal badan baa ka socda caasimadda bilicda dib u soo laabanaysa inaad ka qayb qaadataan caasimaddaana mar sidii loogu faani jiray loogu dhaali jiray loogu dhaato taasna qayb ka wada noqono ayaan rajaynaynaa dhammaantiin aad iyo aad baa mahadsantihiin dhalinaana tashintaan ka weyn baan u samayn doonaa dhammaantiin waa idin mahadcelinaya xuseen shire aad baan kaaga mahadcelinayaa gaar ahaan heesta u qaaday baaqaale maashaalla wuxuu ahaa najral kubi oo arrintii wuxuu ahaa qof si najraala dadka ugu qudbiya oo in badan ay stresska iyo murugada isku dhaafiyaan sheekooyinkiisa hanti ubadan buu ahaa kuwii dirina ilaahay haka jazeeyo qaabta ummadda ka galeen aad baan kaaga mahadcelinaynaa heestaas suxufiyiinta ayagoo kaaga mahadcelinaynaa suxufiyiintu kaalin muhiim waxay ugu jiraan bulshada ayakaa warsiiya ayakaa madadaaliya ayakaa waxbara ayakana inaad la safato waan kaaga mahadcelinaynaa intiin caawa halkan ka soo qayb gashay waxaad buujiseen inaad nabadda taageeraysaan inaad dowladnimada taageeraysaan inaad fanka iyo dhaqankaa taageeraysaan dhammaantiin waa mahadsantihiin gudoomiyaha gobolka banaadir maxamed ka siiwo xukuumaddu way kugu taageeraysaa dadaalkaaga soo celinta fanka iyo qaranka dalxa heestaada telefishin qaranka daawan jiray shakaroon haweenka
guud ahaan inta aynu kusoo gabagabeynayna daawadayaal barnaamijkeeni gaarka aynu kaga hadlaynay bandhig faneedkii qayladhaan iyo habeenkii muqdisho oo lagu qabtay magaalada muqdisho intaynu ku kulmi doono barnaamij ka lamid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadani daartay baanahay dhulka aynu leenahay waan ku